hadduu alla idmo waxaynu saaka qaybteedii koowaad bilaabaynaa sheekadii taxanaha ahayd aynu ka sameeynay dhaqanka reer guuraaga waxaynu hadduu alla idmo ka jawaabi doonaa 4 su'aalood su'aasha koowaad waxa weeye reer guuraa maxaa loo yiri reer miyiga su'aasha labaadna waxa weeye maxaa sababay reer miyigu inay guurguuraan su'aasha saddexaadna waxa weeye geediga reer miyigu imise u qaybsamaa su'aasha afraad ee u dambeysana waxa weeye sidee awrta loo raraa mid baana insha Allah u dul istaagaynaa marka reer miyiga waxa loo yiri reer guuraa waa garab ku daaqsato waa gibil ku daaqsato waxaana laga wadaa gibil ku daaqsato يعني كل بمشي عدو نعرف كهليسو عصبه ضاق له أي أجورة هذي مالس كده جنادان وحد عيسى أما صورة قلعة لولك أود وردان بيه يبات كوينة كده ماذا كل هذي بيه يبات كده ماذا أما يرادان حولك من نولان كران hadday ku noolaadaanna way ku rafaadayaan sidaa darteed ileen guriyo oma malaasno dhagax oma dhisnee kolba meeshii xoolahoodu nacfi ka helayaan cusuboo daaq leh ayay u guuraan waxay dhisanayaan oo wax deerta ku qaadayo ee gaadiidka ay wataan kolba meeshay damcaan intay ku rartaan ay degayaan qoflada aqal yar oo weyneyn ortiga uu leeyahay ee gaadiidkiisa u qaadi karo leeh kadibna kolba meeshii nacfi leh ee xooluhu xoga cunayaan biyana ka gaari karaan bay degayaan marka saasa reer guuraa loo yiri oo de guriyo u malaasan ka kici karin ma jiro su'aasha labaad waxay oranaysaa maxaa sababay in reer guuraagu kolba meel u guuro ama reer miyigu kolba meel u guuro inta hadda aan soo sheegnay way ku jirtaa laakiin sababaha waaweyn dhowr baa lagu sheegaa kow haddii la iska deganaado shabada heerku degan yahay waxa ka dhalan karta takar iyo shilin xeradona digada ay xooluhu dhigayaan ayaa buux dhaafaysa geela iyo adhigana way u daran tahay digadaas laakiin looda iyada digil bay u noqotaayo looda iyada way u fiican tahay maadaama geela iyo adhiguba digadaas day ku farabato intay ku caaroodaan dhogortoodu ay go'ayso ay qood xumaanayso digada looma diin karo waa in laga raraa shilinta ku dhalatay dhaatay ku taayadna waa in laga raraa oo tingo bay ku keenaysaa xooluhu jirkooda isbedelaya duleedka reerkuna balow buu noqonayaa oo boor buu noqonayaa oo waxa weeye lama mari karo oo xeradii dhannayd reerkuba dee way isbedelaysaa daaquna wuu fogaanayaa intaasoo kulantay awgeed in laga guuro waxay noqonaysaa mid waajib ka dhigaysa taas baana sababtay in la guuro kolba meel loo guuro reerkuna kolba meel cusaba uu dego geedigu imisuu u qaybsamaa dhowr baa asagana loo qaybiyaa mar waxaa la yidhahdaa hayaan marna waxaa la dhahaa kaynaan waa laba geedi oo dhaadheer oo si markii laga fiiriyo de isku mid ah dhan markii laga fiiriyana kala duwan marna waxaa la yiraahdaa daldalasho ama digarogasho iyagana waa laba geedi oo gaagaaban dhan markii laga eegana kala duwan hayaan hadii la yiraahdo waa meel naq ka da'ay oo حوي حل كلول أو كليلة لجوري هالكاس ورفاضية كليل بدن يو حوي آن يحرات بالمرة مركب والله كيناني بالله هيان كنا والله مد لكن وتشيلال لجوري سجنا حل تشيلال لجوري دل الشذا يدقر رشدنا وإن شوادي اللي دقنا ميلان كفوين ترك وجورو مركا أو هديل دل الشذا اللي هذانا حويان alaabta de la qoranayaa oo meel
aan ka fogeyn oo u muuqata ayaa la degayaa degadan baa laga baxayaa geedi ma ee degar rogasho hadii la yiraahdana iyada lafteedu kama sii foga waan geedi gaaban way xabab war baan dib ka raacinay oo aan sheegnay xabab warra waa reer guriyihii intay ka soo tageen xera soo deys camal oo xoolihii intii la soo daayay meel iskugu tagay habeenkii oo in yaroo ma oo alaabon badnayn wata laakiin guriyihii ka soo tagay kolkaas oo kalena dad yar baqa cararaya oo kala way reer soo guuray ma wada soo baqa cararaya yani waa si kaliisa dad u soo guuray on ama kaysba ma aha gaadiidkii baa ka maqan meeshana laguma nagaan karo saadarteed guriyahoo iska dhisan ayaa laga tagayaa kadibna dib baa loogu soo noqdaa marka habeenka meesha lagu hoyday ee lahayn guriyo wax ku dhisnayn baa leeyahay heerku iska xaba waro way ka soo tageen wixii ay haysteen oo dhan iyo guriyahoodii iyo alaabtii way ka soo tageen oo dib baa loogu noqonaya marka kaas la yiraahdaa xaba war su'aasha u dambaysa sidee awrta loo raraa intaynaan u guda galin rarka ratiga aan qaybino ratiga laftiisa laba loo qaybiyaa rati hayin ah iyo rati bacdarho oo waxa weeye layli ah ya loo kala qaadaa midka layligihi waa ratidii la rafaado oo hadda tabaranayo oo lala kadeedmo oo kolba la qarqarsi oo laga yaabo intii heriyadii la saaray inuu iska diiday oo dhaqaaqo la garaaciyo oo lala kadeedmo waa rati layli ah kaasi dib badan baa lala maraa laakiin ratiga hayinka ay intuu ogolaado rarkan iyo wax dhan barto caanama daadsaanka la yiraahdo yeen rabnaa inaynu asaga tilmaan ka bixin qaabka loo raro sida aad arkayso ratiga waa la soo fadhiisinayaa oo marka hore hoggaanka lagu soo xidhayaa kadibna waa la soo qarqaadayaa waxa marka meesha fadhiyo waa la fadhiisiyay waxa korka ka saaran ee ugu horeeya waa karbaashku waa marya jilcsan oo loogu talagalay ratiga inay ka celiyaan culayska la saari doono day dhigan noqon lahayd iyo haday haama noqon lahayd wax kasto la saarayo waa marya jilcsan oo loogu talagalay inay ka celiyaan kadibna waxa la dul saaraa oo waxa dul saaranay kalena waxa weeyaan qobtolku waa ula dhuudhuuban amba la yiraahdo door wax laga sameeyay iyo marya la sugeeyay marka xogaa culays adag bay leeyihiin marka waxay ka ilaalinayaan maaragtay ratiga jirkiisa inuu gaaro karbaash baa ka hooseeya asaguna uu culus iyo uu adag yahay labada shay oo la isdul saaray waxay ilaalinaysaa jirka ratiga oo waxay ka ilaalinaysaa waxyaalahan dusha laga saari doono sidan markuu ratigu yahayna waa la yoombeeyay baa la yiraahdaa yani markii karbaashkii la saaray kadibna qobtalkii la saaray xadhig waxa weeye adkeynaya lagu xidhaa xadhigaasi waxa la yiraahdaa mareeg waa laba qaybood oo miduu xaggan hore odbaha taagtaagan labada aha hoostooda ayaa lagu soo qabanayaa kadibna xagga dambe la keenayaa sayntana dabagelis baa lagu xidhayaa xadhigna intii labadan udub meesha iska yimaadaan hoose laga suro yaa dhanka kale loo wareejiyaa kadibna waa la nuujiyaa marka waa laba xadhigo midna xagga hoose ratiga ka wareegaya midna waxa weeye leelkan kora maraya labada xadhig markii lagu xidho ayaa kadib labada udub ee la yiraahdo yoombada ama waxa weeye faraaqyaha leh taagtaagan hadda habta ka muuqda yaa lagu xidhaa inta markii lagu sameeyo ayaa waxa la harradan hadda muuqda meesha ku arkayso yaa labada dhinac laga geliyaa kadibna waa la isku adkeeyaa waa lagu xidhaa dhigahan kor ka muuqda lool baa la yiraahdaa waa waxay ka samaysan yihiin ula dhuudhuuban iyo harko bay ka sameeyeen harag laga sameeyo harga geela ama saanta geela laga sameeyaa kuwan kale iyagana ka muuqda ertigan kale ee ku xidhan waxa la yiraahdaa waa dhigaha la yiraahdo dhigdhaxooyinka ee kor bay u taagtaagan yihiin kadib markii inta lagu sameeyo
waxaa aan ka soo boodo iyadana harraha lagaga taxaa haamo si loogu sameeyo ilmaha carruurteeda rabo ilaa inta badan carruurtay ku qaataan awrte ee la saari doono guro uu ku seexdo. Harraha marka kabta harradu ku xidhan yihiin ilaa 3 iyo 4 haamood oo kale oo alaabta ah iyagana waa lagu xidhaa say guro u samayso. Kadibna waxaa la saaraa saanta jarcada ama kabada korka laga saaraa ratiga. Dadana wuxuu noqonayaa meel ilmaha la sixin karo oo waxa weeye aqal camal ah ayuu noqdaa. Waka halka ka muuqda ilmihii uu ku jiro oo arkayso. Ratiga marka sida markii loo raro waa la kiciyaa. Kadib haddana waa la caymiyaa labada nin waxa weeye harraha ka taagan xarig bay ku nuujinayaan. Xariga marka waxaa la yiraahdaa cayn. Xarkaha inta badan lagu xidho cayn baa kamida, maraag baa kamida, hoggaanka ratiga lagu qaadaya kamida, farxulka ratiga waxaas oo dhanba waa la iyo dabageliskii waa xarka waxaas. Ratiga marka inta loo sameeyo kadib waa laga qaadayaa. Saas buna ku soconayaa waxa weeye inta meesha uu ka degayo uu ku soconayaa. Waxaan ku soo gabagabaynaynaa laxos waa dardarta dhowrka bari ee hore guryaha si fiican loo dhisanin wali waxa weeye daalkii iyo geedigii uu dadka ka muuqdo ayaa la yiraahdaa laxos. Yani jawada waa lagu cusub yahay ama heerku jawada waa ku cusub yahay oo waa laxos baa la dhahaa. Markii guryaha si fiican loo dhisto ilaa 10 bari meelaha la gaadho ayaa waxaa la dhahaa waa la laxos baxay ama heerkii uu laxos baxay. Yani jawada uu ku cusbaa oo waxa weeye oo guritaankeedii guryaha dhistaankoodii hawla lagu jiray 7 bari hore Soomaa markii la soo gabagabeeyo heerku uu laxos baxay way la soco qaybaha kale inoo hadhay hadii la yiraahdo.